Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran channelka Higgs Number 1 aad baad ugu mahadsantihiin sida quruxda iyo qiimaha badan ee muuqaalada ugu dambeeya aad u share gareyseen aad u like gareyseen waa idinka mahadcelinayaa. Qisada aan noo wada maantay waa qiso lamaane sanado badan isjecel caqabada ugu weyn ka qabsatay labada famil. Qof walba waxa uu dhahayay labadiina kuma guuleysanaysaan jacaylka, labadiina kuma guuleysanaysaan nolosha, labadiina waad kala dhamaan doontaan, labadiina waxba iskuma dhali doontaan. Labada famil erey walba ka soo baxa wuxuu ahaa lamaane sanado badan isjecel mid dhaawacayay. Caqabadaane waxay ka dhalatay labada hooyo ee awal saaxiibo ahaa laakiin arrin yaab leh darteeda isku dagaalay. Labada hooyo go'aankooda wuxuu ahaa inay kala geeyaan, laakiin iika mar walba waxay isku dayayeen caqabada inay ka gudbaan. Jacaylku ma isaga ayaa dadka wax bari doono mase jacaylka ayaa wax la bari doonaa? Waa qiso aan ka baran doono dhacdooyin aad u tiro badan oo ku jiro. Haddii uu yahay muuqaalka kugu horeeyay, fadlan channelka subscribe saaro, like-aaguna waa noo dhiirigelin. Walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan Allah ka sukow maanta inaan ku haminno inaan 500,000 oo subscribe aan gaarno qaybta ka ahaa. Waa ku mahadsantihiin ii dadaalkii dheeraa aad ila soo gasheen. qisadan waxaa ila soo wadaagay lamaane ku nool magaalada Hargeyso. Waxaan ku dhalanay magaalada Hargeyso. Nolosheena yaraanta waxay ahayd mid aad u qurux badan. Labadeena hooyo waxay ahaayeen laba hooyo oo saaxiib ah oo labadeena inaan is arkoonno ama aan is jeclaanno sabab u ahaa. Waayo labada hooyo waxay ahaayeen laba hooyo oo saaxiib ah aadna isugu dhow. Anigu mar walba waxaan tegi jiray guriga, iyadana waxay imaan jirtay gurigeena. Markii hooyo wax ii dirto ama hooyadeed markay wax u soo dirto, ugu dambeyn waxay noqonay laba qof oo isbarta, laakiin barashadaasi qofna ma ogeyn in heerkan uu soo gaari doono. Ugu dambeyn waxaa dhacday labadeena inaan isfahanay, isfahankiina jacayl uu ka dhashay. Wax caqabad ama wax dhibaato ah nama aynan haysanin bilowgii hore, waayo gurigooda inaan tago way ii sahlanayd, aniguna gurigeena inay imaato way u sahlanayd, waayo labada hooyo ayaa wax noo kala diri jiray. Waxay nolosheena sidaa u socoto adigu 2 sano ayuu jacaylkeenu gaaray. Runtii waan isku faraxsanayn, labada familna way ogaayeen in labadeena aan nahay laba qof oo isku dhow, da'deedana aad u yareed oo xilligii shukaansiga ayaan ku jirnay. Wax walba waxay isbedeleen markii 2 sano xiriir aad u qurux badan una dhaxmaray. Waxaa dhacday mar qura in labadii hooyo ay isdagaaleen shalay saaxiibada ahaa, in dagaal aad u xun uu dhaxmaray. Dagaalkooda labada famil ayaa qayb ka ahaa, laakiin anaga kama aanan qayb galin dagaalka, waayo anigu gabadhan jeclahay familkeeda ma awoodin inaan la dagaalo. Si la mid ah iyadana maynana awoodin wiilka ay jeceshahay familkooda inay la dagaasho. Markii laga reebo labada aabbo ee labadeena oo isjecel oo jacaylku uu gacmaha naga xiray, ma ahe inta kale dagaalka way galeen. Heer dagaalka wuxuu gaaray labada hooyo maxkamadda la geeyo oo halkaa lagu soo kala xukumo. Caqabadii iyo dagaalkii labada famil wuxuu noqday mid xataa dabka aan la kala qaadanin, salaanta iska daayay. Waxaa dhacday in aniga hooyadee igu dhahday kuguma arki karo gabadhaasi, waayo waa famil aniga ila dagaaleen, i dhibaateeyeen. Hooyadood waxay rabtay anigu inay ceebayso. Hadday hooyadee aniga intaa ay dhehayso, gabadha hooyadeedna si la mid ah waa reer aniga i dhibaateeyay, marna kuuma ogoli wiilkooda inaan kugu arko. Haddii aad rabto sharaftayda inuu madaxayga kor ahaado, waa inaa ka hartaa wiilka. Waxay ahayd caqabad dagaalka labada hooyo anigu jacaylkeena xanuun badan ku hayay. Waxaan go'aansanay labadeena in xiriirkeena 2 sano socday labadan famil dagaalkooda wax caqabad ah uuna nagu noqonin, jacaylkeenana aan qarsanno. Inkastoo walaalahay iyo gabadha walaalaheed ay ogaayeen inaan weli labadeena kala harin, mar walba hooyooyinka waxayna dhihi jireen manii ogoli xiriirkiina waa inaa kala hartaan. Waxaan u sheegi jirnay cid walba inaan kala harnay, laakiin qalbiyadeena ma awoodin inaan labadeena kala harno. Noloshaas adag ayaan xiriirkeena ku hoos qarinaynay. Mar walba waxaan arkayay caqabad haysata labada famil, laakiin aniga iyo iyada waxaan ka ahayn banaanka. Nolosheena waxay ahayd mid noo qarsoon oo aan hoos u qarsanno. Adigu xiriirkeena 4 sano ayuu gaaray. 2 sano labada hooyo saaxiibo ayay ahaayeen, laakiin 2 sano dambe ciqaab adduunyo ayaa marnay oo cidnana ma ogoleen inaan wada kulanno, iska badaa xiriir joogto ah inaan yeelanno. Wuxuu waqtiga socdo 4 sano ayuu xiriirkeena gaaray. Balankeena wuxuu ahaa maalin inaan ka guulaysanno. Nafteena waxaan u sheegi jirnay
haddaan wadajir noqonno inaan ka guulaysan doonno reerahani iyo kana dib aan u xiriirin doonno jacaylkeena awooddiisa. waan ku kalsoonayn labadeena inaan maalin midaas suubin doonno, laakiin ciqaabta marba marka ka dambayso way sii ballaaranaysay. adigu wuxuu jacaylkeenu socdo wuxuu gaaray jacaylkeena 7 sano. 7daa sano markii laga reebo 2 sano ee hooyooyinka saaxiibada ahaayeen, 5taa sano ciqaab waan marnay oo wax walba ayaana lagu suubiyey. anigu dhowr mar ayaa ligu canaantay, gabadhana dhowr mar ayay hooyadeed u dishay in ay iga harta aniga. laakiin anagu qalbiyadeena marna uma diyaarsaneen inaan kala harno. 7 sano ayaa noo soo gabagaboobay. caqabadii way taagan tahay, inay kasii xoog badato meehe hoos uma dhicin. anigu waxaan dhameeyey jaamacaddii, waxaan ahay macallin iskuul ka dhiga, waxaan aruurin jiray qarashkayga. ugu dambayn labadeena maalin aan wada fadhiisannay waxaan isku sheegnay 7 sano oo dhibaato ah inaan soo marnay, haddana loo baahan yahay sida aan anagu mustaqbalkeena ku fikiri lahayn. waayo waddo walba aan marnay intaan xiriirka lahayn, labadan famil ma heshiinayaan, colaadooda way sii badanaysay. marmarka qaar waxaa arkaysaa walaalaheena oo isdagaalayo. waxaan go'aansannay oo aan istusnay in jacaylkeena uu ku guulaysan karo in labadeena aan isguursanno. sidee ku dhici kartaa labada hooyo aanan diyaar u ahayn inay heshiiyaan, in arooskeena ay qabanqaabiyaan, kana qayb qaataan, raallina ay ka noqdaan? inta badan waxaa xaqiiq ah hadday hooyada guriga ku qanacsanayn in gurigaa inuu sii dhisnaado ay aad u adag tahay. laakiin anagoo ku kalsoon nafteena iyo jacaylkeena waxaan istusnay in aan dhanka aabbayaasha aadno, halkaasi oo xalka ugu wanaagsan aan ka heli karno. haddii aan isguursannane hooyooyinka ay noqon karaan kuwa heshiiya. waxaan ku wada ballannay in qof walba aabbihiisu u tago, arrintana uu u sheego. sidaasaan ku soo kala tagnay. anigu aabba ayaan u tagay, waxaan ku idhi aabbo, arrin ayaan kaa leeyahay. wuxuu igu dhahay wiilkayga ii sheeg. waxaan ku idhi aabbo, sidaad og tahay hooyo iyo saaxiibteeda way isdagaaleen, muddo 5 sanane way isdagaalsan yihiin. aabbe waxaa jirto hooyo iyo hooyadaas markay saaxiibada ahaayeen, aniga iyo gabadha reerkaasi jacayl ayaa noo bilowday. 2 sano ayaan isjecleen aabbe. kadib labada famil markay isdagaaleen, labada hooyaba waxay culays nagu saareen inaan kala harno. laakiin aabbe waan kala hari weynay. mar walbana hamigeena wuxuu ahaa in anagu jacaylkeena uu baabi'in, laakiin labada famil aan isu keenno. laakiin hooyo iyo gabadha hooyadeed dagaalkooda heer wuxuu gaaray carruurta xataa ayaan issalaamaynin, mar walbana ay isdagaalaan. 7 sano ayuu gaaray xiriirkeena. 5 sano waan qarinaynay. caqabado badan iyo dhibaatooyin badanne dhanka hooyooyinka waan kala kulannay. ugu dambayn waxaan istusnay in dhanka aabbayaasha aan aadno, waayo maanta waxaan ku heshiinay inaan isguursanno. markaasuu dhahay aabbe, runtii way adag tahay 2 qof oo si dhaba isku jeclaaday in la kala geeyo. laakiin aabbe, aabbooyinka ma og tahay inay wax hagaajiyaan, laakiin hooyooyinka guriga ee maagaan ee baabi'in karaan. hooyadaa waxaan isku dayayaa inta karaankeyga marka hore inaan u sheego inay waxaas iska ilowdo. maanta wiilkeeda gabadha uu jecel yahay, labadaa ilmo mustaqbalkooda iyo noloshoodani aan ka fikirno. laakiin waxaan kuu ballanqaadayaa aabbe, hooyadaa haddii aan si wanaagsan ula hadlo ay diiddo, gurigaaga anigu xabadka inaa u tunto, gabadha aabbaheedana anigu aan kaa doono. waayahan ku dhahay aabbe. aabbahay wuxuu bilaabay maalintaa wixii ka dambeeyey hooyo inuu kala hadlo in labadan lamaane ee isjecel 5 sano isqarinayo, 7 sano isjecel, in xilligan ay joogaan xilli mustaqbalkooda ay dhisan lahaayeen oo nin iyo xaaskiisa ay noqon lahaayeen. ilmahan yar colaadiina soo jiitamayso aadan dhex gelinin. hooyaday waxay tiri marna ma dhacayso islaantaas gabaray dhashay in wiilkayga uu guursado. markaasuu aabbe wuxuu ku yidhi xaaskayga, waad ogeed shalay waxaan ku dhihi jiray waxaan aad isla wadaan labadiina ma ahan wax wanaagsan. dumar meel isugu yimaadaan wax kuma wada heshiiyaan, arrintan iska daaya, saaxiibtinimadiina ayay dhaawacaysaa. ugu dambaynne waa kaasaayo way dhaawacday. laakiin mar raba ilmahan yar in dagaalkiina ay sabab u noqdaan, ka lexda ilmahan. laakiin hooyaday way diiday. aniga waxay igu tiri wiilkayga marna kuuma ogolaanaya gabadhaas, mana dhacayso gabadhaa inaa guursato. anigu halkaa ayaa halganka ka waday. laakiin gabadha waxay dhahday aniga aabbahay waan ka baqaayaa, waayo gabar walba hooyo ayay u sheegtaa, hooyo ayaa aabba u sheego. anigu aabba waan ka baqaayaa oo waan awoodi la ahay aabba inaan arrintan la wadaago. markaasaan ku idhi dhib ma lahan, anigaa aabbaha la hadlaayo. anigu waxaan ahaa wiil xishooda, laakiin xishood iima yaalo. waa inaan dhacsadaa gabadhii aan jeclaa. caqabadaanne waddo walba aan ugu qaadi karo ama xal waa ka heli karta aan isleeyahay waa inaan raadiyaa. sidii ayaan ugu dambayntii gabadha aabbaheeda ku raadiyey. ugu dambayntii maalin ayaan fursad fiican ku helay. waxaan ku idhi adeer, waxaan rabaa inaan kula hadlo. si wanaagsan ayuu ila hadlay, waayo labada hooyo markay saaxiibo ahaayeen adeer ayaan dhihi jiray. wuxuu igu dhahay adeer wax dhibi miyaa jiro?
markaasaan ku idhi adeer dan ayaan kaa leeyahay waxaan rabaa inaan kula hadlo waayaha ayuu igu dhahay wiilkayga soo fadhiiso meel uu fadhiyaan ugu tagay marka waan fadhiistay waxaan ku idhi adeer waad ogtahay labada hooyo inay ahaayeen dad saaxiibo ah aadna isugu dhow saaxiibtinimadoodii waxay kalliftay ama ay dhashay aniga iyo gabadhaada Hiblaayo in xiriir jacayl ah una dhex maro 2 sano ayaan isjeclayn kadib waad ogeed shaqaaqadii weyneed ee labadii hooyo isku dagaaleen oo ilaa heer maxkamadda isla gaareen wixii xilliga ka dambeeyay labadeenaba waxaan ahayn 2 qof oo jacaylkooda la dhuunta waayo labada hooyo ma ogoleen in xiriirkeena uu sii socdo laakiin anagu qalbiyadeena isma dagaalin labada hooyo isdagaalane jacaylkeena wax saameyn ah kuma yeelanin inkastoo caqabada aad u weyn muddo 5 sano aan la noolnahay 7 sano ayuu gaaray jacaylkeena 5 sano dhanka hooyooyinka ayaa caqabad naga haysatay ugu dambeyn waxaan go'aansannay in dhanka aabooyinka aan aadno si jacaylkeena u miro dhalo waxaana ku heshiinay inaan isguursanno markaasuu yidhi wiilkayga waan ogahay dagaalkii xumaa in wax walba uu saameyn karo laakiin wiilkayga waxaan isku dayi doonaa in gabadhaasi hooyadeeda anigu aan la hadlo laakiin adiga aabbaha waa inaa adigu la hadashaa waxaan ku idhi adeer anigu aabbo waan la soo hadlay aabbahayna wuxuu qabaa fikir ah in jacaylka iyo dagaalka la kala saaro labada hooyana ay ku heshiiyaan labadooda ubad ee isjecel markaasuu dhahay waa arrin wanaagsan haddiiba aabbayaasha ay diyaar u yihiin guryaha inay dhisaan hooyooyinka waxaan u malaynayaa inay iika wax u sheegi doonaan aniguna waan isku dayi doonaa in xaaskayga aan wax walba u sheego waayaha ayaan ku idhi adeer anigoo faraxsan ayaan soo baxay waxaan u sheegay in aabba aan la kulmay wax walbana ee si wanaagsan ku socdaan aabbahayna uu oggolaaday iyada aabbaheedna uu oggolaaday waxaan rajaynayaa in aabbayaasheena hooyooyinkeena arrintooda ay xalin doonaan runtii labada hooyo ma ahayn kuwo si sahlan ku iloobi kara colaadda iyo dagaalka u dhexeeyey hooyo walba way diiday waxay dhahday gabadhayda uma ogoli wiilkaas si la mid ah hooyadeena waxay tidhi wiilkaa uma ogoli adigu muddo 2 bilood ah ayaa labada aabbe iskuday suubinayeen ugu dambayn labada aabba waxay go'aansadeen inay iika ishor fadhiistaan labadii aabba ayaan isku ballaminay way wada fadhiisteen maalintaa ay wada fadhiisanayeen labadeennana waxaan go'aansannay inaan labada aabba u tagno oo aan la fadhiisanno sidii ayaan afarteena u wada fadhiisannay hadalka waxaa bilaabay aabbahay wuxuu ku dhahay waan ka xumahay colaadda labada famil aniga iyo adiga aan xalin weynay ma qornayn laakiin hadda labadaana ilmo oo 7 sano isjecel waa inaan arrintooda ku dadaalnaa si xal loogu helo anigu xaaskayga si walba wax waan ugu sheegay waxaana isku dayay inaan xaaskayga qanciyo laakiin way diiday hadda awoodda aabbe ayaan rabaa inaan wiilkayga kaaga soo doono bal adiguna ii waran markaasuu dhahay waa sax labadeennaba waan ku ceebeysannahay labadeena xaasee saaxiibada ahaa dagaalkooda inaan heshiisiin weynay hase ahaato maanta ilmahan yaree isjecel ee dhibaatada iyo rafaadka soo maray ee 7 sano isjecel waa inaan ilaalinaa jacaylkooda anagoo aabbayaasha ahne waa inaan xaasaskeena ku qasabnaa kuna qancinnaa in ilmahan yar mustaqbalkooda iyo noloshooda dagaalkooda ay saameynin hadday iika heshiisiin weynane waa in ubadkaan aan isku haynaa labadii aabba ayaa ballamay kadib aabbayaasha waxaan u sheegnay anagoo inaan jecelnahay familkeena farxaddooda iyo wadajirkooda laakiin aanan rabin in jacaylkeena uu saameeya arrintaasi waan isjecelnahay mustaqbal iyo nolol ayaan rabnaa idinkaa aabbayaasheena ah maanta madaxyaasheena idinkay idin hoos yaalaan waxaan rajaynaynaa jacaylkan aan 7 sano soo ilaalinay dhib walba aan u soo marnay hadal xumo aan u soo marnay inaad garab nagu siisaan labadii aabba waxay ballan qaadeen inay wax walba u suubinayaan in jacaylkan uu miro dhalo waxay inoo ahayd farxad iyo hami weyn oo aan ka lahayn mustaqbalkeena ugu dambayn labadii aabba si gooni ayay u wada hadleen waxayna go'aansadeen inay qasab ugu dhigaan hooyooyinka in ilmahan ay isguursadaan aabbahay wuxuu u tagay hooyo wuxuu yidhi waan ku ixtiraamay adigu waad ii ixtiraami weysay waayo anigu wiilkayga wax walba wuu iga qiimo badan yahay 2 bilood adaan kula hadlaayay ugu dambayn gabadha aabbaheeda waan la kulmay wiilkaygana gabadha waan u doonay waxaana diyaar u ahay inaan odayaal diro hal mid waan kaa codsanayaa wiilkaa iyo gabadhaasi inaad arrintooda haddii aadan si wanaagsan u qabanaynin inaadan wax dhibaato u geysanin hooyaday way aamustay wax walbana kuma qanacsaneen si la mid ah gabadha aabbaheedane wuu la hadlay hooyadeed oo wuxuu ku yidhi ilmahani anagaa isku doornay anagoo aabbayaashii ah ayaa guurkii diyaar u ah ilmahan farxaddooda aan ka wada talinno laakiin hooyooyinka waxay isku dayaayeen inay si hoose noola hadlaan laakiin anaga waxaa noo muuqday in jacaylkeena uu noqon doono midkii familkani farxaddooda iyo jacaylkooda dib u soo celin lahaa ugu dambayn waxaa dhacay in aabbahay odayaal uu diyaariyey una diray gurigii
way wada fadhiisteen labadii aabbo si wanaagsan ayay guurkeena uga hadleen xilli ayaa la soo wada balamay waxay inoo ahayd farxad labada hooyo iyo walaalaheena kuma ayna faraxsanayn war xasuustaa walaalahay waxay idhahayeen hooyada reer la dagaalsan miyaad gabar ka guursanaysaa si la mid ah ayaa gabadha la dhahayay laakiin hadalladaasi waxay noqdeen kuwo dhagaheena aanan maqlin qalbigeena waxa uu noo sheegayo keliya fiiriya anagoo isku sheegayno haddii aan isguursanno inay wax walba dhammaan doonaan wax walbana farxad noqon doonaan ugu dambayn sidii ayaan ku aqalgalnay labada hooyo aanan ku qanacsanayn halkaasi ayaan farxaddeeni iyo jacaylkeeni ka bilaabannay runtii waxaa jiray hadallo badan oo aniga hooyaday si gooni ii dhahaysay gabadha hooyadeedna si gooni u dhahaysay laakiin mar walba labada famiil waxaan jeclayn inay isku soo dhowaadaan wuxuu wakhtiga socdo sanad ayaa inoo dhammaaday guurkeena laba qof oo isku faraxsan laakiin waxaa jiray hadal qalbigeenna dhaawacayay oo labada famiil ka soo baxayay labadiina guurkiina ma sii jiri doono wax u wada iskuma dhalaysaan laba nolosha wada qaybsadana ma noqon doontaan hadalkaa wuxuu ahaa mid qalbiyadeena dhaawaco laakiin waan ka sii soconnay hadalkii labada famiil wuu dhaafay oo dadka xaafadda ayuu galay hadalka ugu xun ee qalbigeena dhaawaco wuxuu noqday iskuma dhalaysaan labadan waa ma dhalayaal gabadha hooyadeed waxay leedahay sanad ayaa lagu qabaa maxaa dhashay maxaa ninkaan ugu lugo'aysaa shalay aniga kuma qanacsaneen meela aniga ku qanacsaneen ayaa gashay waa kanaa ubad dhabta aa saartid ma arkaysid intuu ninka ku qabo si la mid ah hooyaday waxay dhahaysay tan waa ma dhasho ee wiilkayga iska fur laakiin ereygaas dhaawaca uu noo geysanayo si sax uma fahmi karin labada hooyo magaaladiioo dhan laba ma dhala ayaa isqabo ayay ahayd anigu waan adkaysannay noloshii ayaan wadannay 4 sanno ee aan isqabno waxay ahayd 4 sanno ciqaab aan marnay haddii aan hore 7 sano isku jecleen aan isdhahan haddaa isguursataan caqabaddan iyo dhibaatadan way dhammaanaysaa laakiin 4 sano aan isqabno 4 sano waxay ahayd 3 sano ka mid ah erayada ugu waaweyn ay ahaayeen iskuma dhalaayaan iskuma nagaadayaan wax farxad ma qaadayaan famil sii jida ma noqon doonaan jacaylkooda ma sii jiri doonaan aad buu noo dhibay waxaa erayadaa weli aad u dhibay xaaskayga mar walba waxay dhihi jirtay qof walba wuxuu idhahaa ma dhasho ayaa tahay wiilkan waa khasaarinaysaa reerkaygana waxay leeyihiin ninkan waa ma dhale waxaan arkay xaaskayga wejigeeda marba marka ka dambeeyo inuu issii beddelayo arrintaasna murugo ahayd aniguna wax u wada ilaahayna ma siinin waan u adkaysanaye erayga ma isku dhalayaan ma sii jirayaan way cabsi gelinaye laakiin waxaa iga cabsi badnaa markaan arkay xaaskayga wejigeeda waxaan go'aansaday in reerkayga iyo gabadha reerkeeda dartooda aan magaalada Hargeysa ugu tagno ee aan magaalada Boorama degno halkan macallin ayaan ka ahaa mushahar fiican waan ka qaadanayay laakiin erayga dartiisa inaan xaaskayga ugu wado xaaskaygan waxaan ku iri waan ogahay inaad dhibsatay erayada ka soo baxaya labada famiil ka waran haddii aan magaalada isaga tagno ee aan Boorama aadno waxay tiri waa arrin wanaagsan naga wad magaaladan waan ku dhibaatooday labadii qof ee sheekaysanayso inay anaga naga sheekaysanayaan ayaan u arkaa hadday xataa naga sheekaysanaynin waxaan ku iri waayahay ugu dambayntii iskuulkii aan dhigaaye ayaa qayb kale wuxuu ku lahaa magaalada Boorame waan u tagay maamulka waxaan ku dhahay halkan waxaan rabaa inaa isaga guuro waxaa idinka codsanayaa inaa halkaa ii wareejisaan way oggolaadeen sidii ayaan anagu ugu guurnay anagoo cidna u sheegin in magaalada aan ugu haajirayno erayada xun ee qalbigeena dhaawacayay waan ka guurnay magaalada Boorame ayaan degnay halkaa ayaan nolosheeni ka bilaabannay shaqadeedii ka bilaabay runtii waan ku faraxsanaa in magaalo aan dadkeedana dhibaataynaynin aan soo degnay inkastoo hooyaday markay soo wacdo ay dhihi jirtay ma dhashadii wakhtiga miyaa rataa inay kaasii lumiso si la mid ah gabadha hooyadeedna erayadaa iyo erayo ka xun ayay gabadheeda markay soo wacdo ee dhihi jirtay laakiin magaalana laga jecel yahay aan wax dhibaato dadkeeda aan kala kulmaynin ayaan degnayn nolosheeni ayaa halkeed ka sii wadannay wuxuu gaaray guurkeena 6 sano 4 sano oo aan Hargeysa joognay iyo 2 sano aan joogno magaalada Boorame 7 sanane jacaylkeeni ayaa jiray 2 sano kadib waxaa dhacday in maalin hadal naxdinna aan maqalnay waayo gabadha hooyadeeda ayaa tiri waxaan rabaa in magaalada Boorame aan imaado waayo gabadhayda 2 sano ayay iga maqan tahay waxaan rabaa inaan soo booqdo ugu dambayn way imaatay gurigii ayay soo degtay maalmihii hore naxariis ayaan ka dareemaynay laakiin 2 isbuuc kadib waxaa bilaabatay caqabadii ee halkan u timaaday inay gabadheeda ku dhahdo hooyo ma waalan tahay ninkan cimrigaaga ayuu kula qaybsaday hooyo macaan 7 sano haddaa wada socoteen 6 sano aad isqabtiin aadan waxba u dhalin hooyo sidaan ma qurux badna hooyo ninkaa miyuu ku sirxaday ma kaa aqli badiyaa facaagii way dhaleen ilmo gabdhihii kaa yaraa ayaa maantay u wada haysto
waxay ku tiri hooyo labadeena waa isku faraxsannahay noloshana way noo qurux badan tahay ubadka Allah ayaa bixiyo hooyo waan iska sugaynaa adigu bil ee maamadii joogtay dhibaato iyo rafaad ayaa guriga ka bilowday xataa aniga inay igu dhaga hadasho war labadiina kala danaysta 6 sano haddaad wax isku dhalaynin maxaad iskula joogtaan gabadha ay ku leedahay war ninkaan naa kale ayuu guursanaa ama hadda inuu qababaya og adigu meesha ku lugo-ayo hooya aniga kuguma fiirsan karo ugu dambayn gabadha hooyadeeda 2 arrin ayay u soo bandhigtay waxay tiri gabadhayda inaad duco qaadato oo ninkaa madaxiisa ka qaadato aan israacno oo magaalada inay Hargeysa aan aadno haddii aamidaa diido oo ninkaan la jooga dhahdo hooyo waan ku habaarayaa habaarkaygana meel xun ayuu kaaga soo bixayaa haddaba habaarkayga ayaa ku haayo waayo nin aniga aan ku rabin ayaa shalay guursatay 6 sano ayaa la nooleed maxaad ka faa'iiday go'aanka qaado ama habaar gurigan inaan kaaga dhex tago midaas aad dooranaysaa oo anigu keligay aan Hargeysa aado markaan galabkii shaqada ka imaaday ayay xaaskaygu aad u murugaysan waxay igu dhahday ninkayga hooyo waxay tiri 2 mid waa inaad doorataa waa inaa iraacdaa oo ducadeeda qaadataa oo ninka madaxa ka qaadataa ama inaan habaar gurigan kaaga dhex tago oo aniga aan ka tago runtii habeenkaas aniga iyo xaaskayga ma seexanin arinta ayaan ka murgeynay waayo hooyo bax ma dhihi karno habaarkeeda ma qaadan karno anaguna kala ma maaranno inaan kala tagno ma awoodno salaad subaxii ayaan baxay anagoo indhaha isu keenin oo habeenkii oo dhan soo jeedno waayo ma awoodno labada midba inaan suubinno salaad subaxii ayaan baxay masaajidka ayaan aaday waxaa jiray macallin xaafadda isla degnin oo inta badan salaad subaxa masaajidka isugu imaan jirnay iskuulkan isla dhigi jirnay waxaan ku dhahay maamulka u sheeg anigu ma imaan kara arin ayaa ay haysato markaasuu igu dhahay maxaa dhacay waxaan ahayn marka 2 macallin oo saaxiibo ah oo derisna ah wada sheekaysto waxaan ku iri runtii anaga magaalada Hargeyso dhibaato ayaan ugu soo tagnay labadeena family ayaan ka soo haajirnay haddana gabadhii aan qabay hooyadeed ayaa halkan timaaday waxayna gabadhii doorsiisay 2 mid inay gabadhii raacdo oo ay iska furto oo ay Hargeyso ku celiso ama inay habaar noogu tagto anigu 6 sano ayaan isqabnaa wax u wadna ilaahina ma siinin shalayna labada qoys jacaylkeena ma taageersaneen arintaas ayaa la murugeysanahay xalay ma aanan hurdin labadeena indhihii ayaan ku soo jeedaa runtii markaasuu dhahay way sahlan tahay xal yar ayaa jiro oo adkaysi yar u baahan markaasaan ku dhahay muxuu yahay wuxuu dhahay waxaa soo bisaan ducada qaata habaarka ha qaadanina hana kala taginina been yar ayaa sheegaysaan markaasaan ku dhahay maxay tahay wuxuu dhahay markaa tagto xaaskaaga waxa ku dhahdaa xaaskayga aniga adi ma awoodna inaan kala tagno habaarkii hooyana ma rabno waan adkaysanaynaa muddo bil ah hooyo waxa ku dhahdaa madaxayga wuu isiiyey hooyo waan ku raacayaa been ayaan u sheegaynaa muddo bil xagga soo joog kadib wax walba markay degaan hooyo ka soo dhuumo si habaarkeeda aan ugu badbaadno runtii way nagu adkayd laakiin waan qaadanay labadeeni ugu dambayn xaaskaygii ayaan la wadaagay waan wada qaadannay hooyadeed ayay u tagtay waxay ku tiri hooyo madaxayga ayaan ka soo qaaday hooyo waan baxaynaa wallaahi waa ii timaaday waxay dhahday waan ku faraxsanahay in gabadheeda madaxeeda aasiisay ma jeclayn ubad adiga aa dhashay in dhabta ay kuu saarto waayo islaantaas waxay ayeeyo u tahay ama dhiigeeda ah in gabadheeda ee dhasho kuma faraxsaneen wax walba ayaan u suubiyey inay wax u wada ku dhalin maantina gabadheeda way xorowday anigana waa xoroobay islaamaha ficiga waan la sheekaysan karaa hadal ma aana dhihin laakiin xanuun badan ayay igu haysay erayada ee maamada ii dhahaysay laakiin waan ogaa aniga xaaskayga inaanan kala tagin ugu dambayn anigu waan baxay maalintaa waan awoodi waayey inaan aado iskuulka magaalkayga ayaan gees ka galay adigu habeenkii ayaan soo noqday qolkayga jiifka ayaan galay qolkii hooyo ee deganeed ayay gabadheedin isla seexdeen waayo islama seexan karno xataa casho iima keenaynin inna la fahmo ayaan diidaynay subaxi waayay baxeen oo magaaladii Hargeysa ayay soo aadeen magaalada Boorame keligay ayaa ku haray runtii wiilka saaxiibkay ee macallinkan isla ahayn maalmahaas xanuunka badan waa uu garab istaagay adigu xaaskaygii Hargeysa ayay tagtay familkeeda oo u maleeyo inay kala tagaan hooyaday markii ay maqashay oo magaaladii tagtay leereerihii waa darise way soo wacday waxay igu tiri hooyo shalay hadalkayga waa diiday waa kana 6 sano waqtigii wuu kaa lumay waxba kuuma dhalin anigu waa iga fogaatay haddana waa kana gabadhii waa lagaa soo watay markaasaan ku dhahay hooyo dhib ma leh waqtiga ayaa intaan qornaa ugu dambayn aabbahay ayaa soo wacay wuxuu yidhi aabba waad fududaatay mayaan ku dhahay aabbe ma fududaanin anigaa arrin kuu sheegaayo laakiin hooyo ha u sheegin maxay tahay ayuu igu yidhi waxaan ku dhahay aabbe aniga gabadha kalama tagin hooyadeeda ayaa noo timaaday muddo bil ah ayayna dhibaataynaysay ugu dambayn gabadhii ku tiri waan ku habaarayaa oo gurigan kaaga dhex tagayaa ama ducadeeda qaada ninkaan iska fur labadeena waxaan ku heshiinay
inaanan isfurin laakiin hooyo saa laga dhaadhiciyo markay Hargeysa geysa bilna ay ka soo dhuumato habaarka hooyo ayaan diidanayn intaa. Markaas yiri arrin fiican ayaa soo bisay wiilkayga, wiil aqli badan ayaa tahay. Gabadha aabaheedna waa wacay, waan u sheegay wax walba, waxaan ku yiri aabayaan loo sheegin hooyooyinka. Waayaha ayay dhaheen aabooyinkana mar walba way jeclaayeen gurigeena inuu dhisnaado. Adigu bishii aan ku balannay ayay xaaskayga iga maqnayd. Ugu dambeyn waxaa suuroobi weysay inay xaaskayga bil soo baxdo. Bilba bil ayay noo dhiibaysay. Sidaasi ayay xaaskayga sanad magaalada Hargeysa ku joogtay, aniguna aan ku joogaa magaalada Boorame. Dadka waxay u maleeyaan markii labada aaba laga reebo in labadeena aan kala tagnin, laakiin kala ma tagin. Ugu dambeyn haddana maamulkii ayaan wacay. Waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan Hargeysa dib ugu soo noqdo, ma ii soo bedelaysaan? Waayahay igu dhaheen way iga ogolaadeen. Sidii ayaan magaalada Hargeysa u imaaday. Waayo waxaan rabay xaaskayga inaan is aragno, wada kulanno, inkastoo inay Boorame soo aado ee aad ugu adkaatay. Sabarkii dulqaadkii ayaan badinay. Anagoo magaalada Hargeysa isla joogno si dhuumaaleysi ah labadeena ku kulannaa oo dadka aan ka qarinnaa. Mar walba labadeena rajo iyo hami ayaan lahayd, qofna qofka kale kama niyo jabin, maalin wax walba inay inoo hagaagayaan. Anigu marka waxaan go'aansaday lacagta marka aniga xaaskayga meel wada degannahay aan biilan lahayn, markaan mushaharka soo qaato inaan dugsiyada quraanka tago oo aan macallimiinta ku dhaho ardayda xalwada ay busudka hala siiyo, hanoola duceeyo, aniga xaaskayga inuu Ilaahay u wadna siiyo. Ilaah ayaan talada saaranay, salaada ayaan ku duceysan jiray, mar walba waan soomi jirnay suu Ilaahay u wad noo siiyo. Haddii Ilaahay u wad uuna siiyo, caqabadan iyo dhibaatadan inay yaraanaysa ayaan nafteena ka dhaadhicinay. Hal sano haddii aan Boorame joogay, hal sano kale ayaan magaalada Hargeysa joogaa oo xaaskayga anigii iida aan si qarsoodi ah ku kulannaa inaan kala tagnana u maleeyaan hooyooyinka. Mar walba waxaan sugaynay maalin inaan si wada jir ah labadeena meel u wada degi doonno. Waxay ahayd rajo aad u weyn, anagoo isqabno ayaan si labadeena hooyo u qancinno, jacaylkeennan dhibaato u imaanin, gurigeennana loo habaarin, ayaan laba guri kala seexanaynay anagoo xalaal isku qabno. 8 sano ayuu guurkeena gaaray. 2 sano waan kala maqannahay. Waa caqabad aad u weyn, laakiin mar walba sabarkeeda iyo dulqaadkeeda ayaan lahayn. Maalin maalmaha ka mid ah ayay xaaskayga isoo wacday iyadoo aad u oynayso. Waxaan ka baqaayay ayaa dhacay. Adigu intaan waa ku qanacsanayd, laakiin aniga kuma qanacsaneen. Markaasaan ku dhahay isdaji, maxaa dhacay ii sheeg. Waxay tiri waxaan ka baqaayay ayaa dhacay. Muxuu yahay waxa aad ka baqaysay? Markaasay tiri hooyaday waxay dhahday wiilka abtiga ayaan rabaa inaan kugu daro. Shalay guriga ayuu yimid, aniga xaas la qabaan ahay. Hooyadeena waxay rabtaa wiilka abti inay igu darto. Markaasaan ku dhahay dhib ma lahan, waan baxaynaa oo magaaladeena Boorame ayaan ku noqonaynaa. Markaasay dhahday mar Hargeysa aan ka orodno, mar Hargeysaan u soo orodno, iyo mar Boorame aan u orodno, nolosheena sidaa miyay noqonaysaa? Haddii aanba ka tagna meeshaan oo dhan aan meel kale iska aadna ka waran. Markaasaan ku dhahay horta Boorame aan ku noqonno, kadib ayaan wixii xalay gaaraynaa. Isbuucan ayaan wax walba noo soo hagaajinayaa, waan baxaynaa. Waayahay igu dhahday anigoo uma dul qaadan karo, anigoo la ileeyahay nin kale ayaa lagugu darayaa, waayo aniga adiga i qabo, waan ku baryayaa arrintan naga soo afjar. Waayahan ku dhahay waxba ha ka baqin, wax walba khayr ayay noqonayaan. Waxaan kuu ballan qaadayaa isbuucan inaan halkaan ka tagayno. Anigu marka maamulkeen u tagay waxaan ku dhahay maamulkaygiiyow waan ogahay in aad xagga i geyseen isoo celiseen, waxaa idinka codsanayaa haddana in Boorame la ii bedelo. Maamulka wuxuu igu dhahay maxaa adigu kaa qaldan, maxaaskaaga ayaa horey ii gadaal kuu wado. Waan u sheegay maamulka, waxaan ku dhahay arrintaas ayaa ii haysato, ii dulqaata. Waayaha ayuu igu dhahay maamulka. Kadib maalintii xigtay waxaan maagay xaaskayga inaan waco, laakiin xaaskayga telefoonkeeda wuu dansan yahay. Waxay ahayd naxdin aad u weyn. Maxaa dhacay? Ugu dambeyn galabkii ayay soo wacday. Waxay igu dhahday maantii arrin ayaa dhacday. Maxaa dhacay ayaan ku dhahay. Runtii aniga hooyaday hadallada igula hadlayso ee wiilka abti ay igu qasbayso waan u adkaysan waayey. Ugu dambeyntii anigoo kushiinka ku jiro ayaan dhulka ku dhacay. Haddii la i qaaday isbitaalka la igeeyane waxaa la sheegay inaan anigu uur leeyahay. Hooyaday waxay igu tiri oo yaa uurkaan u leedahay. Markaasaan ku dhahay hooyo, qofkaan uurka u leeyahay isagaa imaan doonee ha sugu weynin, ee waxaan rabaa inaad guriga imaato. Markaasaan ku idhi haddan kuu imaanayaa. Markiiba waan soo dhaqaaqay, gurigii ayaan imid oo aanan 2 sano aan albaabkooda galin. Si toos ayaan gabadha hooyadeed ugu tagay anigoo xaaskayga u tagin. Waxaan ku idhi hooyo, ixtiraam iyo qadarin aan kuu haayo ayaa hooya aniga iyo xaaskayga muddo 2 sano kala maqannahay. Hooya anagu kalama tegin, adigaa hadalkaaga qaadanay, waayo ma awoodin inaan kala tagno, mana awoodin habaarkaaga inaan qaadanno. Hooyo 2 sano ayaan si qarsoodi ah u wada kulmayne anagoo hooyo xalaal isu qabno. Intaa hooyo inaan adigu ku qanciyo. Hooya adiga iyo hooyaday dagaalkiina
maantay dhibaatadan ayuu noo geystay. hooyo jacaylkeena 7 sano ahaa ayaa ixtiraami weyseen oo aad hooyo dhibaatayseen. hooyo maantay 8 sano ayaan isqabnaa. hooyo anagoo 4 sano isqabno ayaan meeshaan idinka tagnay. 2 sano ayaan Boorama joognay. 2 sanana hooyo waan kala maqannahay oo halkan ayaan joognaa. hooyo waa noo nixi weyseen. dhibaato walba iyo rafaad walba labada hooyo dartiina ayaan u mareynay. maantay hooyo ubadkiina haddaad u nixi weyseen, ilmahan yar ee caloosha ku jiro aad ayeeyada u tihiin ee dhibaato iyo rafaad walba u geysateen. hooyo 8 sanaan sugaynay inaan aabba iyo hooyo noqonno. maanta ayeeye ayaa noqoteen. hooyo waa idin baryeena. dagaalkiina dhibaatadan uu noo geystay, hooyo dagaalkiina halkaan ku ekaado. hooyo ilmaha yar ee caloosha ku jiro, hooyo xataa ixtiraam oo aad ayeeye u tihiin. anaga hooyo waana ixtiraam weysayne. gabadha hooyadeed eray wuu ka soo bixi waayey. xaaskayga ayaan u tagay. waxaan ku yidhi noloshaydii waan sabarnay, waan dulqaadannay. muddo 8 sano ayaan isqabnaa. dhibaato adduunyo ayaan marnay. intaan xiriirka laheenna way noo dheereed. ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahayga 8 sano kadib ubadkan ina siiyey labadana hooyo aan dhibaatada iyo rafaadka dartooda u marayno, in ilaahay qalbiyadooda uu isu geliyo ilmahaana ayeeyaday u yihiin inay u naxaan ee u dulqaataan. anaga waynoo nixi waayeene inay ilmahan u naxaan ilaahay qalbigooda ha geliyo. xaaskayga waxaan noo diyaarinayaa guri. Hargeysa ayaan degaynaa. Boorama ma aadeyno. halkan ayaan nolosheeda ku wadanaynaa. waa daalnay. hore iyo gadaal saan ugu soconnay. waxay igu tiri wax alla waxaad adigu diyaariso diyaar ayaan anigu ku ahay. waan baxay. hooyadii ayaan u tagay. waxaan dhahay hooyo muddo 8 sano ayaan xaas qabaa. wax ubada ilaahay nama siinin. hooyo waan dhibaatoonnay, waan rafaadnay. 7 sano aan isjeclaynne ciqaabtii dhibaatada uuna haystay. markii laga reebo 2 sano aad labadiina saaxiibo ahaydeen. hooyo dagaalkiina wuxuuna gaarsiiyey 2 sano si dhuumaaleysi ah inaan isugu imaanno. hooyo wax walba ha ahaato, been walba aan sheegno, aan dulqaadanno, aan sabarno. ugu dambayn hooyo anigu xaaskayga ma furin. idinka inaan idin qancinno ayaan beentaan u sheegnay. haddana hooyo xaaskaygii uur ayaa ii leedahay. meel inaan wada degnaa rabnaa. hooyo anaga waana ixtiraami weyseen, waanoo nixi weyseen. ilmahan 8 sano la sugaayay ayeeyada aa u tihiin. hooyo ay u tura. anaguna magaalada ayaan gees ka degaynaa. hooyo dhibaato waan marnay. hooyo waan ku baryaayay. hooyo intaan ka badan hooyo hana dhibaateynina. markaasay dhahday oo weli ma naagtii ayaa qabtaa? hooyo waan qabaa. hooyo waan ku baryayaa. hooyo waan ku baryayaa. dhib hooyo intaan hanoogu filnaato. maantay ubadkaa yar hooyo macaan fiiriya. hooyaday iyadoo wejigeeda xanaaq ka muuqdo ayay iga tagtay. kadib aabbahay ayaan arrinta u sheegay. aad u farxay, waayo qof walba wuu ku farxayaa in 8 sano kadib ilaahay ubadna siiye. dhibaato iyo rafaadne ee noo dheereed. ugu dambaynta aniga xaaskaygii meel ayaan wada degnay. noloshii ayaa halkeeda ka sii wadannay. alxamdulillaah, ilaahay gabar ayuu nagu arsaaqay. labada hooyo way noo imaadeen, laakiin labadooda mar walba waxay ahaayeen kuwa aanan isjeclayn. waxaan ku dadaalaynay labadii hooyo inaan xalkooda raadinno. runtii nolosha ayaan sii wadannay. caqabadihii badnaa oo dhibaatooyinkana haystay gurigeena wuu ka nastay, waayo ubadkii hadduu imaaday. alxamdulillaah, hooyooyinka jacaylkeena iyo gurigeena dhibaato kuma ahayn. hadalkii xumaana wuu naga degay, waayo hadalka ugu weynaa ee nafteena muruga geliyey wuxuu ahaa, xaaskaygana aad u murjiyey wuxuu ahaa, labadan waxba iskuma dhalayaan, gurigooda kuma nagaadi doonaan, way kala tagi doonaan, waxna kale ma faa'iidi doonaan. hadalkaa iika wuu iska dhahayeen, laakiin anagu qalbiga ayuu naga dhaawacayay. wuxuu waqtiga socdo ubadkii labaad ayaa ilaahayna siiyey. ubadkii labaad markuu ilaahayna siiyey ayaa hooyaday soo dabacday oo bilowday gabadhii inay soo wacdo mar walbana ay u imaato. waxay inoo ahayd farxad aad u weyn. maalin ayay gabadhana hooyadeed u tagtay. waxay tiri hooyo maantay uurkii 3 ayaan leeyahay. hooyo macaan adduunkan waa laga tagayaa. hooyo anaga dagaalkiina dhibaatada ugu badan anaga ayuuna qabtay. maantay hooyo ubadkii 3 ayaa caloosha ku jiro. hooyo waxaan kaa codsanayaa, hooyadaa kale aniga si wanaagsan ayay igula dhaqantaa. maalin ayaa waxaan ku idhi hooyaday adima iska heshiisaan. markaasay tiri hooyada wallaahi hadda wax uma qabo, dad waaweyn ayaan noqonnay, intaan ka badanne cuqdad isuma sii qaadi karno. hooyo macaan adiguna gabadhaada ahay. maanta ilmahan quruxda badan ayaa hooyo ilaahay iga siiyey. familkaana maanta xidid ayaan noqonnay. haddaan kala tagna xataa hooyo dad kala haraya ma nihin. hooyo ilaahan kugu dhaariyey. hooyo intaan ku ekeeya dagaalka. gabadha hooyadeedna maalintaa waxay tiri anigan wax uma qabo. waxaan go'aansannay marka labada hooyo inaan isu keenno ee aan ka talinay heshiiskooda. ugu dambayn labada hooyo waxay naga oggolaadeen inaan heshiisiinno. ugu dambayn waan isu keennay. waxaan ku dhahnay marka waad isdagaasheen. dagaalkiina maalmo ayuu socday, laakiin colaaddiisa gurigan ayuu dhibaato ku noqday. alxamdulillaah, sabar
iyo dulqaad dheer kadib maanta waa u jeedaan oo ilmahan ayaad ayeeyo u tihiin. alxamdulilaah. waxaan rabnaa in farxaddiinni iyo walaaltinimadiinni saaxiibtinimadiinni dib aad u soo celisaan, wax walba oo hore u dhacayna inaa iska ilowdaan. runtii gabadha hooyadeed waxay tidhi labadeennaba shalay qalad ayaan galnay, waayo ayuutadan marka aan bilaabaynay ayaa nimankeena noogu digeen hadda saaxiibtinimadiina way wanaagsan tahay, lacag waad isku dagaali doontaan ee ka jooga. ugu dambeyn ayuutadii ayaan isku dagaalnay oo ilaa intaan aan soo gaarsiinay in ilmaheennii xataa aan dhibaateennay. wixii gurigeenna loo dhibaataynayey, loo rafaadinayey oo colaadda intaa la eg gaarsiiyey waxay ahaayeen labada hooyo oo dad aad saaxiibo u ahaa. ayuuta ee bilaabeen oo aad u weyneyd ayay ugu dambayntii isku dagaaleen oo dagaalkooda halkaa gaarsiiyey. alxamdulilaah. haddayba maanta gurigeenna wada fadhiyaan oo ay ku heshiinayaan waxay ahayd wax weyn. sida ayay labada hooyo ku heshiiyeen, farxaddeenii iyo jacaylkeenii halkeeda uu ka sii socday. erey aad u weyn oo aabbahay dhahaa jiro: aabbe, jacaylka dhabta ah ama labada qof ee si dhab ah isku jeclaaday, is aaminay, isu kalsoonaaday, jacaylkooda lama bedelo ee jacaylkooda ayaa wax walba bedela. labadii hooye aan ogaa colaadoodii iyo dagaalkoodii meel uu gaaray, ugu dambeyn jacaylkiina guulaystay ayaa labadii hooyo heshiisiyey. maanta ya alxamdulilaah, qoys qurux badan, lagu faraxsan yahay oo jacaylkiina qof walba ka sheekeenayo ayaad haysataan. labadii hooyena saaxiibtinimadoodii ayaa dib u soo celiseen. anagoo oo nimankii qabay ahaa waan heshiisiin weynay, dhowr mar aan isku daynay, guryihiina waan ka celin weynay, laakiin jacaylkiina awooddiisa, daacadnimadiisa iyo labadiina sidaa isugu soo sabarteen ayaa ugu dambayntii beddelay colaaddii hooyooyinka ee ayuutadii ka dhashay. jacaylkiina ayaa guulaystay. alxamdulilah. maantii labadii hooyo waa saaxiibo ayuuta aanan niyaddooda gelaynin, iyagoo xoogaa da' noqday. anagaa maanta dad waaweyn noqonnayba, laakiin colaaddii ayuutadii dhalisay ayaa guryaheennii dhibaato badan u geystay oo runtii rafaad iyo dhibaato marnay. waayo labada lamaane markay isguursadaan hadday waalidiinta ku hadlaan farxadda guriga mid weyn ma noqoto. waayo 8 sano ayaan inaan aabbo noqdo iyo inay hooyo noqoto sugaysay. inkastoo aan sabarnay, dulqaad aan yeelannay, xumaan walba oo noola geysto, hadal walba oo na dhaawacaya, na cabsi geliyo, waan adkaysanaynay, xanuun walba waan dareemaynay. 2 sano ayaa anagoo isqabno haddana kala maqneen si aan hooyooyinka u qancinno. alxamdulilaah. wax walba aan soo marnaba ilaahay maantay waxa uu noo kasay in labada waalid ay noo duceynayaan, ubadkeennii uu noo joogo oo aan maaragta farxad wada wadaagayno. waxaan jeclaysanay qisadeena inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno, waayo waxaan marnay dhibaato aad u weyn. waayo 8 sano aan wax u wada isku dhalin, 8daas sano 2 ka mid aan kala maqnayn oo aan iska dhigin 2 qof oo kala tagay, anagoo kala tagin ayaa anagoo xalaal isu qabno si hoosaa u wada kulmaynay. alxamdulilah. sabarkeena maanta guri buuxa ayaan nahay. dhibaato walba iyo rafaad walba oo loo sabro, labada qof oo daacad isku noqdo, waxaa xaqiiq ah inay guulaysanayaan. waxaan mar walba xasuusannaa ereyga aabbahay oo ahaa labada qof oo si dhaba isku jecel oo is aamino, jacaylkooda lama bedeli karo ee jacaylkooda ayaa xumaan walba bedeli kara. colaaddii labadii hooyo ee ayuutada ka dhashay jacaylkeenii ayaa beddelay. inkastoo dhibaato iyo rafaad aad u weyn aan soo marnay, alxamdulilaah. ugu dambeyn maantii qoys faraxsanaan nahay. waxaan jeclaysannay sabarkeena iyo dulqaadkeena, xanuunkeena inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed. waayo wax walba oo loo sabra, 2 qof walba oo daacad isku noqda, caqabad walba iyo dhibaato walba oo soo mara way ka gudbayaan. waayo 2 famil oo isdagaalay oo ka dhalatay, waayo jacaylka labada hooyo isu qabeen iyo saaxiibtinimadooda ayaa anagu isku jeclaanay, laakiin colaadooda jacaylkeena wuu baabi'in waaye. rafaad iyo dhibaato iyo hadal walba ee noo sheegaanne kalama aana tagin, waan ku sabarnay. dulqaadkeena alxamdulilaah. maanta guri buuxa ayaan ku haysannaa. waxaan rajaynaynaa qof walba oo qisadeena daawado cashir inay u noqoto, waayo waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka anaga aan marnay qoysas badan oo maanta ku jira inay jiraan, inuu ilaahay ka saaro. waa rajaynaynaa. sabra oo dulqaata waa guulaysanaysaan. runtii waa qiso aan cashir badan kala bixayno. mar walba hiigsi lambaruun wuxuu idiin soo gudbiyaa qisooyinka aan isleeyahay bulshada wax badan ayay ka faa'iidaya, waayo waqtigiina qaaliga ah ayaad hiigsi lambar 1 siiseen. idinkuna muuqaal aad wax ka faa'iidaan waa inaan idiin soo madhignaa. runtii maalin walba ayaa kumanaan qisa nala soo wadaagaa, laakiin qisada markaan u arko in bulshada wax badan ay u tarayso, wax badanna ay ka faa'iidayaan, ayaan idiin soo gudbiyaa. waxaan rajaynayaa qiso walba aa idiin soo gudbiyo inaad ku cimri qaadataan, cashirna aad kala baxdaan. inaad qisada iska dhegaysato, waqtigaaga iska qasaariso muhiim ma aha, ee waxaa muhiim ah qisada meelaha kaa taabtay iyo meelaha aad u aragtay inay wax badan cashira ku jiraan
waa inaad xasuusataa ama waa inaad meel ku qorataa. waxaa laga yaabaa qof dhibaatadan ku jiro laakiin qisadan daawanin inaad maaragtay tala siiso, taladaana uu ku faa'iido. waa rajaynayaa inaan sabarka ka baranno. waa rajaynayaa jacaylka dhabta ah in colaadda uu u bedeli karo heshiis iyo nabad iyo farxad, waayo way sabreen. 7 sano ay isjeclaayeen, 5 sano reeraha way ka qarinayeen, dhibaato iyo rafaad ayaa lagu haayay. 8 sano ay isguursadeen, ciqaab adduunyo ayay mareen, wax walba ayaa lagu sheegay. 2 sano iyagoo isqaba ayaa la kala geeyey, hoos ayay ka wada socdeen oo isaga kulmaayeen. ugu dambeyn alxamdulilah, maantay colaaddii jacaylkooda ayaa burburiyey. alxamdulilah, maxay ku gaareen? sabar, kalsooni, dulqaad. labadooda haddii la isku diri karo ama hadalka dadka ay maqli lahaayeen, labadooda way kala fogaan lahaayeen. maantay quruxdan iyo farxaddan nooma soo gudbin lahayd. sabarka natiijadiisa ayaa qisadan ka baranaynaa. colaadda jacaylka ayaa lagu baabi'in karaa. jacaylka hadduu dhab yahay oo is aamintaan, wax walba waa ka guulaysanaysaan. maanta waa qoys qurux badan oo waalidiintooda heshiisiyey, maantana u wada haysto. waa jacayl runtii lagu dayan karo, wax badan aan ka baran doono. ilaahay waxaan ugu baryayaa in qoyskooda mid usii jira farxadooda iyo ubadkooda ilaahay u barakeeyo, inuu ilaahay ugu dhigo. way sabreene mirihii sabarka ayay guranayaan, ilaahay u zaa'idiyo. anagana kuwii kuwaana qaataa cashir ka bartaa inaan noqonaa rajaynaya. qisadan wax badan ka baro. hadduu dhibaato yar ku soo wajaho oo jacaylkaaga ku baabi'inaysid ama dad ay idinkala geenayaan, qisadan wax badan ayaa ka baranaysaa. inaan niila kala geenin, isu kalsoonaataan, dhibaato walba iyo xanuun walba inaad si wada jira ugu gudbi kartaan, inaad ka barataan ayaa rajaynayaa qisadan. mar walba hiigsi waxaa ka daawan doontaa qiso aad wax ka faa'iidaan. aan u duceyno qoyskan. qaybta qoraalada fikirkaaga iyo talada nagula wadaag. hadduu yahay muuqaalka kugu horeeyey, fadlan channelka subscribe saaro, like-aaguna waa noo dhiirigelin. walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan, allah ka sokow waa idinka mahad celinaya sida quruxdu badan ah hiigsi u soo garab istaagteen. hayloowinina muuqaalka inaad like garaysaan, asxaabtiina u share garaysaan si channelkeena meel dheer u gaaro. halkaa iga daawanaysaan waa youtube-ka qisooyinka hiigsi lambar 1. anigu waa Subra Carab. mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka, ha guulaysta jacaylka. halkani waa hooyga qisooyinka hiigsi lambar 1. mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh, una share gareeya asxaabtaada. hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo. mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka. waa anigoo ah Subra Carab.